aan ku bilowna tan iyo markii xilka uu la wareegay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxaa Soomaaliya dib loogu celiyay oo loo masaafuriyay boqolaal Soomaali ah kooxdii ugu dambeysay oo Soomaali tarxiil ah oo ka kooban 7 ruux ayaa shalayto waxaa laga dhoofiyay gobolka Minnesota arrimahaasi waxaa aad ula socday Maxamuud Muuse Xasan BBC oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda Soomaalida Mareykanka khadka telefoonka ayuu ugu waramay Jaafar Kukay dadkan Soomaalida oo la celiyay waa ilaa 70 waxaan la isugu geeyay gobolka Louisiana inta badan Jaafar waa gobolka marka dadka la dhoofinayo la isugu geeyo marka maanta xilli hore ayaa la celiyay saakay aroortii diyaaradan oo ilaa 90 qof ay saarayeen 20 kamid waxay ka soo jeedaan koonfurta Sudan waa South Sudan 70 kamidana waa Soomaali sidaas weeye dadkan runtii waxay isugu jireen dad kala duwan dadkan 70 ah ee Soomaalida ah dhamaantood ma gobolka Minnesota bay ahaayeen maya inta badan waxaa laga soo aruuriyay gobollo badan oo Mareykan ah dadka already waa la celiyay saakay ayaa la qaaday oo hadda hawada ay ku jiraan dadkan siyaabo kala duwan bay Mareykanka ku yimaadeen waa dad asylum qaarkood ka soo galay dhinaca Latin America sababtoo in badan oo Soomaali ah ayaa 12 sano iyo 15 sano soo dhaafay ka imaanayay Latin America dadkaas waa dad asylum u yimid wadankan maangeliyadoon oo in badan oo kamida 3 sano iyo 2 sano ku jiray xabsiyada Mareykanka oo maangeliyadoodii la diiday oo maxkamadda ay xukuntay in dib loo celiyo dadna waxay ahaayeen dad waalidkood la socday iyagoo yar wadanka ayni oo dambiye kala duwan galay ka hor inta ayna qaadan dhalashada Mareykanka ah taasna ay keentay sharci waxa jira runtii la baadgareyntii sanadkii oo qofku hadduu qaxooti yahay oo qaadan dhalashada wadanka Mareykanka iyo baasaboorka in haddii hal dambi oo felony uu galo laga qaadi karo sharciga dibna lagu celin karo wadankii uu ka yimid anagu in badan waa ka doodaynay arrintan oo si xoog u soo bilaabatay intii madaxweyne Trump uu la wareegay xafiiska 2017kii markaas waxaan ka hadlaynay dadka Soomaaliyeed aan la celin karin Soomaaliya wali ayna amaan ahayn dhibaatooyinka ay ka soo carareen ay jiraan gobollo badan oo Mareykanka runtii ka ololeynay hatta anigu waxaan tagay magaalada Washington waxaan runtii keenay bill ah in dadkan aan la celin karin balse dhagjal Roomasin oo maamulkan runtii waa garan kartaa arrimaha socdaalka meesha uu ka joogo dad badan oo Soomaali ah baa la celiyay oo ilaa 1,140 oo diyaaradii ugu dambeysay maanta baxday ilaa waxaa jira 4,800 ayaa la amray dalka in laga saaro 1,140 baa laga celiyay intii kalena way joogtaa marka runtii waxaan ku dadaalaynaa anagu markasta in Soomaaliya ay dhibaato ka jirto oo dadkan maangelida ay u yimaadeen senataradeena iyo Congress-ka aan ka doorano gobolada Soomaalida aad ku badan yihiin wax badan ayaan kala hadalnay haddana madaxda Soomaalida dadkan aad ii sheegtay 70 ah maxay isugu jiraan haweeney caruur ma ku jiraan mise dhamaantood waa rag dhamaantood waa rag dadkan waxa weeyna kuma jiraan waxay u badan yihiin waa rag qof oo dumar kuma jiro inta badanna waa ku yihiin falada la qaadayo waxaad ii sheegtay in 4,800 la go'aamiyay in la tarxiilo 1,000 iyo googo'na la qaaday 1,000 iyo googo'aasi intee sana bay qaadatay in Soomaaliya lagu celiyo dhammaantoodna ma Soomaaliya la geeyay kulligood waxaa la geeyay Soomaaliya waxayna soo bilaabatay intii madaxweyne Trump uu 2017kii ilaa iyo maanta oo aan kula hadlayo ayay u dambeysay 1,140 inta badan dadka hadda la amray waa dad sharciyadii laga qaaday oo shaqaysan jiray caadi ah marka policy-ga immigration-ka oo dhan ayuu runtii madaxweynahan aad xaq jir ugu ahaa marka loo fiiriyo madaxweynaha hore marka dadka hadda haddii 1,040 la qaaday inta la xukumayna ay ahayd 4,800 tiro badan baa weli dhiman marka adinku suurtagal ma tahay dadaalkiina inaad sii wadaan maamulkan cusub marka uu xafiiska la wareegana ma laga yaabaa in ay wax iska bedelaan go'aanadii hore waxyaabaha annaga haddaan nahay madaxda Soomaalida ee siyaasiyiinta Soomaalida ah oo priority koowaad nooca mudnaanta koowaad waa arrinta immigration-ka annaga kaligeed maaha dadka minority-ga oo dhan oo laga tirada badan yahay immigration-ka dib badan bay ka qabaan madaxweynahan la doortayna runtii waa madaxweynahan ka rajaynayno isbedel dhab ah inuu ku suubiyo xagga immigration-ka waxaan ka rajaynaynaa hadda maalmaha soo socda marka ugu horeysa uu la wareegay xafiiska inuu Muslim Bank qaado oo wax badan uu ka qabto arrimaha immigration-ka runtiina maaha waxay kamid ahayd waxyaabihii doorashada uu ku galay in dadka immigration-ka dib ka qabo oo dhan uu xalinayo annaga waxa la mid dadkan Laatiinaha oo daaka loo yaqaano oo malaayiin sharci la'aan in sharci si daro marka wax badan ayaan ka rajaynaynaa oo isbedel ah oo dhaba Jaafar sababta wadankan runtii dad badan baa siyaabo kala duwan u imaan jiray ama hadday tahay caafimaad ama waxbarasho ama dad professional shaqo u imaanaya waxaas oo dhan uu mamnuucay maamulka hadda jira oo hadda sii dhamaanay xilligiisu madaxweyne Trump marka runtii
immigration wadankan dan badan buu ku qabaa oo xagga dhaqaalaha dad badan baa uma jira tourism caafimaad waxbarasho bal ehelada dadkan la masaafuriyey kuwa ugu dambeeyey ee maanta laga dhoofiyey Mareykanka ee Soomaaliya loo jiheeyey ee Soomaaliya laga dejinayo eheladooda ma la xiriirteen sidayse u arkaan arrintan aad iyo aad runtii eheladooda qaar ka midana waa ila soo xariireen anna waa la xiriiray waxyaabaha qaarkood runtii cajiibka waxa ka mid ah dad xataa waxa jira weligood aan Soomaaliya arkin dad aan xataa Soomaaliya ku dhalan laakiin Soomaaliya oo runtii cidna ayna ugu horeyn oo maanta runtii ay ka walacsan yihiin eheladooda si dadkaasi ay ula xiriir lahaayeen oo aad garan karto qof aan wadanka Soomaaliya aqoon ku dhalan qaraabo aan u joogin oo runtii waa garan kartaa qofka noocaas oo kala ah runtii arrintan dhibaato badan weeye marka adinku marka dadka la tarxiilo oo diyaaradda halkan ay ka qaado miyuu xiriirkiinu go'aa mise waad la socotaan marka wadanka la geeyo dadka aad ka sheekaynayso ee aan weligood Soomaaliya arag kuwa iyagoo ay da'doodu aad u yar tahay Soomaaliya laga soo kaxeeyey haddii Soomaaliya oo xaaladeeda aan ognahay la geeyo dabcan wax badan bay la kulmi karaan marka xog ma ka haysaan marka wadanka la geeyo kadib iyo waxa ay la kulmaan dadka halkan laga masaafuriyey wayba jiraan diyaarad la qaaday 2018 waxa dhacday wiil kamida markii uu ka digay magaalada Muqdisho inuu qarax dhacay oo ku dhintay oo runtii waxyaabaha la yaabka bay noqotay oo aragnay oo waxyaabaha aan ka digayna oo inay amaan ahayn waxaan kaloo aragnay dad badan oo kamida inay yimaadaan magaalooyinka Addis Ababa Nairobi oo markaas ay asylum u yimaadaan oo xiriir qaxooti oo hor leh ay galaan kuwa badan oo kamida runtii dacwo ayaan u furnaa oo runtii waxaan isku daynaa in mar kale kiiskoodii la furo sababtoo inta dadku la qaybood bay isugu jiraan kuwan criminalka ah waxaa jira wax loo dalbi karo oo wayfara oo loo yaqaan visa visahaas visa la yiraahdo marka runtii waxaan isku daynaa in la soo celiyo waxa kaloo kamid ah dadkaas dad xataa xaaskoodii inta ay joogeen oo la celiyey oo marka xaaskooda ay u dacwoon karaan marka still dhowr qof oo hadda waxaa jiraan ogahay oo processkooda aan socno oo aan isku dayno inaan soo celino marka waxay ku xiran tahay hadda qofka kiiskiisa sida loo ogolaado